بسم الله الرحمن الرحيم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة طيبة، تحية من عند الله، تحية من أهل الجنة إلى أهل الجنة، ألا وهي كما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، أينما كنتم وأينما حللتم، walaalahayga muslimiinta meel kastoo aada joogtaan, waa ustaad cabdulqaadir sida ibraahim oo idin leh kusoo dhowaada barnaamijkeenii tixana ahaa qeybtiisii labaad ee barashada ducooyinka iyo adkaarta. walaalayaal, sida ogsoon tihiin, nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam, nabadgelya naxariis korkiis allah yeele, wuxuu inooga tegay sunno: taraktu fiikum maa in tamasaktum lan tadiluu min bacdii abada, kitaabu allahi wa sunnatii. waxaan idinkaga tegay kitaabka alle iyo sunnadayda, haddaad qabsataan ma baadiyoweysaan mana dhumaysaan. ummadda markii ay ka tageen sunnadii nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo kitaabkii allah, ayaa baadida iyo xumaanta iyo fasahaadda ay ku bateen. haddaba walaalahay muslimiinta ahow, insha allahu tacaala codsi iiga yimid walaalo muslimiin ah oo soomaaliyeed oo daafaha adduunka jooga inaan u duubo barnaamijka barashada ducooyinka iyo adkaarta iyo tarbiyeynta caruurta, oo aan uga dhigo tixane. ilaahay idinkiisa ayaynu duubi doonaa wixii allah subxaana wa tacaala ina baray. idinkan waxaa idinka codsanayaa barnaamijka haddii idin anfaco insha allahu tacaala inaad muslimiinta aada sii gaarsiisaan, aada shargaraysaan. waxaan u sameeyey qanaad oo youtube ah si aada ugula soo degtaan duruusta, si ay u noqoto mid aada kusoo ceshataan, si ilmihiinana ay uga faa'idaystaan, idinkana uga faa'iidaysataan, video ahana usoo degsataan. qanaadka magaciisa waxaan u bixiyey markaz yuusuf channel, markaz yuusuf channel. marka sidaa ula socda insha allahu tacaala. duruusta meesha ayaynu dhigi doonaa, facebookana waan soo gelin doonaa. haddii aada doonaysid inaad la soo degto, booqo youtube-ka insha allahu tacaala. haddaba maanta hadduu ilaahaydmo waxaynu qaadan doonaa qeybtii labaad, tixanihii labaad ama casharkii labaad ee barashada adkaarta iyo ducooyinka. maada kaana rasuulu sala allahu calayhi wasalam yaquul idaa awaa ilaa firaashih waida stayqada min annowm. haddii nabiga calayhi salaatu wassalaam uu gogasha uu seexdo, muxuu dhihi jiray? ducadee ayuu akhrisan jiray? marka uu soo toosana duca noocay ayuu akhrisan jiray? kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa awaa ilaa firaashihi wadaca yadahu taxta khadih. wuxuu ahaa nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam
marka uu seexanayo dhinaca midigta uu seexan jiray, wuxuuna gacantiisa midigta ah uu dhigi jiray dhabankiisa hoost ayuu saa u dhigi jiray, ama dhafoorka ayuu saa u dhigi jiray, gacanta midigta ayuu saa ugu seexan jiray calayhi salaatu wassalaam asigoo weyse qaba oo daahir ah. haddaba sunnada nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam ninkii nooleeya oo ku daysada liibaan badan addunya aakhira ayuu helayaa. haddaba kaana calayhi salaatu wassalaam markaa sidaa u seexdo wuxuu dhihi jiray bismika allaahumma amuutu wa axyaa. marka uu nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam uu seexdo wuxuu dhihi jiray bismika allaahumma amuutu wa axyaa, allow magacaagii ayaan ku noolaanayaa kuna dhimanayaa. marka calayhi salaatu wassalaam istayqada min nawmihi, hurdada marka uu kasoo toosana wuxuu akhrisan jiray alxamdu lilah aladi axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nnushuur. haddaba maanta waxaynu qaadanay laba duco oo iswadata oo aanan kala harin, oo ah midda hurdada iyo midda soo kicida. midda hurdada haddaan ku bilowno waxaan leenahay bismika allaahumma amuutu wa axyaa, bismika allaahumma amuutu wa axyaa, bismika allaahumma amuutu wa axyaa. haddii aada soo kacdidna waxaad leedahay alxamdu lilaahi aladi axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nnushuur. alxamdu lilaahi aladi axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nnushuur. iga daba akhri walaal. alxamdu lilaahi aladi axyaanaa bacdamaa amaatanaa wa ilayhi annushuur. markaad soo toosto ducada akhriso, markaad seexanaysid weyse la-aan ha seexanin, dhinaca midigta u seexo, kadib ducada akhriso, kadib haddaaragti haddaad dhinaca ka noogtid waad soo gedin kartaa, wax mashaakila male. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa biasmaa'i lxusnaa wa sifaati alculaa, iyo idinkaba idin weydiinayaa inuu alla nagu anfaco. wixii aan qaldayna nafsi washaytaan ayay ahaatay, wixii aan saxayna fa min allah, ilaahay dhinaciisa ayay ka ahaatay. waxaan idin rajaynaya insha allahu tacaala inaad sii gudbisaan oo aada barataan oo aada ku camal fashaan, caruurtiina aada bartaan. allah subxaanahu wa tacaala cudurada wareegaya oo halista allah idinka badbaadiyo. waalidiintiina iyo waalidiinteen allah u naxariisto, macalimiinteena iyo macalimiintoodii iyo macalimiintiinii, mashaaikhdeenii waxayna soo bartay iyo mashaa'ikhdoodii, inta diintana moxamed sala allahu alay slm u khidmeynaysaa oo adduunkaanu ku wada nool iyo kuwa dhintay. ilaah waxaan barya subxana wa tacaala inuu jannat lfirdows lacla ugu bishaareeyo. mashaa'ikhda dadaalaysa, macalimiinta dadaalaysa, dadka dhammaan inta khayrta ku dadaalaysa, waxaan allah ugu barya subxaana wa tacaala iyo dhegeystayaashaba inuu jannat lfirdows lacla ugu bishaareeyo, inuu dunuubtooda uu ilaahay subxana wa tacaala uu dhaafo. walaalayaal waxaad ogsoon tihiin marka muxaadaro masaajid laga jeedinayo waxaa laga yaabaa inay 100, 200, 50 qof ay dhegaystaan, laakiin maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala aaladan ayuu keenay oo social media ah oo malaayiin qof, kumanaan qof aada gaarsiin karto, ku daawanayso, ajarkaagiina aan la soo koobi karin. walaalayaal aaladda isticmaalayno waa silaaxun duu xadayn, waa sayf ama aalad laba af leh weeyaan. haddaad rabto waxaad u isticmaali kartaa xumaan, haddaad doontona waxaad u isticmaali kartaa wanaag, adiga ayay kugu xiran tahay. haddaad wanaag u isticmaashana waxaad helaysaa ajir aan la soo koobi karin, waayo waxaa laga yaabaa ummad badan inay ku hanuunaan, ummad badan inay dartaa wax ku bartaan, ummad badan inay sunnadii nabi moxamed sala allahu calayh wasalam ay dhaqangeliyaan. haddaad hayso iyo balaayo iyo waxaan loo joogin aada soo gelisana ummad badan aada ku baadiyeyso, ogow maalinta qiyaamo wixii adiga aada samaysato allah subxaana wa tacaala kugula xisaabtamayaa.
ilaahan hanuun weydiisanaynaa. inta oo xumaanta soo gelisa heesaha soo gelisa waxaan ilaah uga baryaa inuu ilaahay soo hanuuniyo, inuu ilaahay jidka waddada toosan soo tuso. ilaahay subxaanahu watacaala inoo dembi dhaafo. ilaahay caafimaad iyo cafi aan weydiisanaynaa. ilaahay cimri dhayre ayaan weydiisanaynaa. ilaahay subxaana watacaala nabad iyo amni amaan inuu waddankeena nooga dhigo ayaan weydiisanaynaa. ilaahay subxaana watacaala ayaan cadaalad weydiisanaynaa. wajazaakum allahu khayr. walaalayaal sii sheergareeya, gaarsiiya muslimiinta, maxaa la yidhahda ka faa'iidaysta. duruustu waxay noqon doontaa mid tixana insha allahu tacaala. mar waxaa ila wadaagi doona ardayda markas yuusuf litaxfiid alqur'aan alkariim ayaa ila wadaagi doonta insha allahu tacaala. marna aniga ayaa soo gelin doona. alle ha idin barakeeyo. waxaan ilaahay idinka barayaa qofkii sii baafiya oo gaarsiiya inuu ilaahay subxaana watacaala ajarka siiyo. waayo addaalu cala alkhayri ka faacilihi, midka khayrka sii baafiya oo dadka tusa wuxuu la mid yahay asigoo sameeyey. waxaanu noqonaynaa laba qof oo isku ajir ah. ajirka adiga aada raadinayso adna waa raadinayaa, kana anigaan raadinayo adna waa raadinaysaa. ogow allah subxaana watacaala hal ajir ayuuna wada qorayaa haddii adiga sii gaarsiiso. allah kugu anfaco, allah ajir ixsanaadna siiyo. wajazaakum allahu khayr. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. markas yuusuf channel kusoo dhawaada insha allah. walaalkiina alustaad cabdulqaadir sid ibraahim, maqdisho الصومال.